الله عليكم ورحمة وبركاته كلن وعن ونكسن داوديال ملك السوجوكتان كسو دواده قضبضة وركينة ودوركرون حلي تبنتينن مدحوينها دالكا الروشكا فلاديمير بوتين ayaa waxa uu khadka telefoonka kula hadlay Erdogan isaga oo ka codsaday in ay soo dhaxgalaan markaasina ay wada hadal ay u furaan labada madaxweyne balse hal shardi uu wato dhanka kale madaxweynaha dalka Mareykanka Washington ayaa waxay u aqoonsatay dagaalka ka socda Ukraine in Putin uu ku galay dambiyo dagaal waxa wali sii soconaya duqeymaha xoogan ee ka dhacayo qeybo kamid ah caasimada Ukraine iyo waliba magaalooyinka kale ee eedan ka tirsan dalka Ukraine waxa kale oo barnaamijkeenan aan ku soo qaadan doonaa hadii ay idmo dad aad u fara badan oo lagu xiriiray dadka dalka Ruushka kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay sameeyeen mudaharaad aysan dawladda raalli ka ahayn daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo telefoonka kula hadlay dhigiisa Turkiga Tayyip Recep Erdogan ayaa waxa uu u sheegay in uu diyaar u yahay wada hadal lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine balse sida uu horay uu ku sheegay uu wada hadalka hadii uu sii dheeraado uu noqon doono mid fashilma oo aan mira dhalin joojinta waxay Moscow ku qeexday howlgalka gaarka ah ayaa suurtagal ah kaliya hadii Kiev ay joojiso howlgallada militariga markaasina ay fuliso dalabyada Ruushka ee la og yahay sida uu horay oo soo baxay war-saxaafadeed Kremlin-ka kaasi oo lagu sheegay in madaxweynaha dalka Ruushka uu ku xiray in Ukraine looga dambeeyo Ukraine ay hoos timaado ciidamada Ruushka ilaa ay hadda waxa rally ahaada ciidamada Ruushka ilaa ay hadda 600 oo gantaal oo ah nooca casriga ayaa waxa ay ku garaaceen Ukraine tan iyo markii uu dagaalka uu bilowday 24 February sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka militariga Ukraine ayaa xadii sheegay in Ruushka uu bilaabay inay awoodooda isku geeyaan iyaga oo isku diyaarinayo ama ku soo xoomayo magaalada caasimada ayna doonayaan in magaaladaasi ay si dhaqso leh ay u qabsadaan ciidamada Ruushka ee isku dayay inay qabsadaan Kiev ayaa sameeyay kaliya horumar kooban inkasta oo wasaaradda difaaca Ruushka hadii ay baahisay muuqaal muujinayo qaar kamid ah gawaaridooda dagaalka oo sii qulqulayo ama u ruqaansaday dhankaas iyo caasimada dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa waxa uu galayaa marxalad cusub isaga oo Ruushka hadda uu adeegsanayo gantaale casri ah kuwaasi oo la dhacayo magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine ciidamada Ukraine ayaa dhankooda xoojiyay difaacyadooda magaalada iyaga oo qotay dhufayso isla markaasina xanibay wadooyinka muhiimka ee magaalada soo galo magaalada wadooyinka waaweyn ee soo galo ayaa waxa lagu arkay dhufaysi waaweyn oo dhulka hoostiisa kuwaasi oo ay qoteen ciidamada militariga Ukraine waxa kale oo halkaasi ay dhigteen gantaalo lidka diyaaradda iyaga oo ku difaacayo in magaalada aysan soo gaarin duqeymaha dhinaca kale maamulka Biden waa dalka Mareykanka ayaa xadii sheegay inay sahminayaan inay mamnuucaan shidaalka laga soo dhoofiyo Ruushka si loo xoojiyo cunaqabateennada la saaray Moscow ayaa horay waxaa loo saaray cunaqabateeno dhowr ah kuwaasi oo ilaa hadda uu la dhacayo dhaqaalaha dalka Ruushka balse tanna waxa ay qayb ka noqon doontaa waa hadii lagu guuleysto cunaqabateynta la sii saarayo Ruushka kuwaasi oo lagu xoojinayo inkasta oo dalka Ukraine horay uu u dalbaday in la siiyo hubka lidka diyaaradda neetuna ay garab u noqoto balse ilaa hadda dalabkooda wax si fiican uga jawaabay ma aysan jirin warbaahinta Ruushka ayaa dhanka kala sheegay in Putin uu telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Putin u sheegay in uu ka walaacsan yahay weerar dhul iyo bad ah oo Ruushka uu ku qaado magaalada taariikhiga ah ee Odessa ee Ukraine
magaaladani ayaa waxa ay tahay magaalo taariikhi ah isla markaasina ay reer galbeedku aad ugu faanaan, balse ruushka ayaa waxaa laga cabsi qabaa in magaaladaasi gebi ahaanba uu dhulka uu la simaa, isaga oo horey ugu baaqay in dadka ku nool magaaladaasi inay iskaga baxaan isla markaasina ay kusoo waajahan yihiin ciidamadiisa, weliba diyaaradaha laga cabsi qabo inay halkaasi ay duqeymo ba'an ay ka geystaan. Putin ayaa axadii u hanjabay jiritaanka dowladnimada ee Ukraine xilli duulaanka ciidamadiisa ay ka wadaan dalalka deriska la ah oo uu waajahayo iska caabin xoogan, isla markaasina dhaqaalaha dalkiisa ay cunaqabateenadii la saaray ay la daala dhacayaan. dhanka kale haddii iyadana ay eegno, ciidamada ruushka ayaa waxa ay ogolaadeen in ay xabad joojin ay sameeyaan. ciidamada ruushka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin, waxayna fureen wadooyinka bini'aadanimo isla markaasina dadka rayidka si ay uga baxaan ama ay uga baxsadaan dagaalada halkaasi ka socdo. waxaa kale oo ay ogolaadeen in halkaasi la gaarsiiyo gargaarka bini'aadanimo. waxaa lasoo sheegayaa in ciidamada ruushka ay duqeymo ba'an ay ka geysteen magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine. ciidamada ruushka ayaa duqeymo ku burburiyey guryo iyo iskuulo ku yaala magaalada Chernihiv ee dalka Ukraine. magaaladani ayaa waxaa laga soo duubay muuqaalo kuwaasi oo ku tusinayo burburka baaxadda leh ee halkaasi soo gaaray. ruushka ayaa maalmihii u dambeeyey waxa uu adeegsanayay awoodiisa, taasi oo inta badan uu doonayo inuu xoog uu ku muquuniyo dalka Ukraine. dhanka kale haddii aynu Washington waxa ay warbixin ay soo saartay ee ku sheegtay inay ku kalsoon yihiin in ruushka uu galay dambiyo dagaal, isla markaasina lagu soo oogi karo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin dambiyo dagaal inuu ka galay ruushka, balse arrintaasi ruushka marna dhagjalaq u siin maayo. haddii aynu gudaha dalka ruushka, in ka badan 4,366 qof ayaa lagu xiray 56 magaalo oo ku yaalo dalka ruushka kadib markii dadkaasi ay sameeyeen mudaharaad, isla markaasina ay kaga soo horjeedeen dagaalka lagu qaaday dalka Ukraine. dadkani ayaa waxa ay dowladda ay la xiriirisay inay amniga ee khalkhal ay geliyeen, isla markaasina ay ka hor imaadeen duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Ukraine ayaa waxa ay ka dalbatay xulafada dalkeeda inay xoojiyaan amaba ay xiraan hawada dalka Ukraine si aysan diyaaradaha dagaalka ee ruushka aysan ugu soo xadgudbin. waxa ay sheegtay kadib markii ay qiimeeyeen cunaqabateynta la saaray dalka ruushka inay weli ay tahay mid aan adkeyn, isla markaasina ay dalbanayaan in cunaqabateyn dheeri ah la saaro. waxa kale oo ay dalbatay ra-iisul wasaarihii hore dalka Ukraine Yulia in ay NATO ay la soo gaarto xaalad degdeg ah, isla markaasina ay ka caawiso dhanka hubka waa haddii aysan u soo direynin ciidamo ka dagaala gudaha dalka Ukraine. waxaa kale oo ka dalbatay in ciidamo nabad ilaalin ah in la keeno Ukraine si xaalka halkaasi ka jira isbedel loogu sameeyo. daawadayaal waxaa intaasi inooga dhan warbixin dal iyo dibadda naga soo gaaray halkan aad kala socoteen. intaan marka mid xigo ku kulminaa David Mo nabad galyo.